بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo maalin talaada taariikhduna tahay 14 bisha Maarso ee sanadka 2017 ee miilaadiga kuna beegan 15 bisha Jamaadu Thani ee sanadka 1438 ee hijriyada. waxaad ku soo dhawaataan qaybtii lixaad ee barnaamijkii la magac baxay raadraaca boqortooyadii baaxadda weynayd ee Ajuuraan oo hadda la yiraahdo boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo aad ka daawanaysaan telefishinka BSS TV kaasoo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos aan u galin. أسلي خاطري عن حب خلي غريب الدار سمعت الشعور من يحسب البعد عن داره يسلي غريب الدار غريب الدار ومناية تسلي أسلي خاطري عن حب خلي غريب الدار. qarnigii 12aad ee miilaadiga waxaa dalka Soomaaliya iyo meelo kale ee bariga qaaradda Afrika ka mid ah awood buuxda ku lahayd boqortooyadii baaxadda weynayd ee Ajuuraan waxaana xilligaasi deegaanka dadka Soomaalida ah ay degaan uu ahaa hooriga Taajuura iyo Raas Caseer ee waqooyi bari badweynta Hindiya. isla waqtiga waxaa bilaabmay in wadanka Soomaaliya ay ku soo qulqulaan dad Koyta ah kuwaasi oo badankoodu ka kala yimid wadamada ay Soomaaliya dariska la tahay. waxaana ka mid ah dadkaasi Koytada ah ee ku soo qulqulayay wadanka Soomaaliya Oromo loo yaqaanay Berberi. waxa ayna oromadaasi degeen gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. oromadaasi oo ahaa gaalo ayaa markii Soomaaliya ay yimaadeen qaar ka mid ah qaatay diinta Islaamka halka kuwa kalena ay ku sii baaqi noqdeen gaalnimadooda. waxaana halkaasi ka abuurantay isnaceeb iyo isdil. hase yeeshee waxaa arrintaasi aad uga carooday boqortooyadii baaxadda weynayd ee Ajuuraan oo xilligaasi awood buuxda ku lahayd dalka Soomaaliya oona ahayd boqortooyo Islaam ah. waxa ayna afarta jiho bartamaha dooxooyinka webiyada waqooyi galbeed iyo koonfur bari weerar kaga soo qaadeen oromadii degnayd gobolada dhexe. dagaal muddo dheer socday kadib waxa ay guushu raacday boqortooyadii baaxadda weynayd ee Ajuuraan. waxa ayna ka qabsadeen deegaanada gobolada dhexe ee maanta ay Soomaalidu degto. waxa ayna u riixeen oromadii degnayd halkaasi galbeedka iyo koonfurta dalka Soomaaliya. dagaalkaasi oo ay boqortooyadii Ajuuraan ku qaaday oromadii degnayd gobolada dhexe kadib intii diinta Islaamka qaadatay waxa ay ku biireen Soomaalida halka kuwii cawaanimadoodii ku harayna loo sii riixay dhanka webi Shabeelle. boqortooyadii baaxadda weynayd ee Ajuuraan ayaa sii waday dagaalka ilaa ay ka gaartay webiga Shabeelle. waxa ayna oromadii halkaa degtayna u sii riixday dhanka koonfur galbeed ee Soomaaliya. waxa ayna taariikhdu xusaysaa in ilaa iyo waqtigaani raadkoodu uu muuqdo meelihii ay boqortooyadii Ajuuraan dagaalada kula jirtay oromada oo ay ka mid yihiin gobolada waqooyi bari iyo bartamaha dalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa jiray meelo waaga oromadu degnayd oo ay ka mid yihiin Hargeysa, Firdaysa, Baran, Yaabil oo ceelasha Barmadoobeeya ah, Dhahan, Qowlaweyn, Qowlayar iyo Qowle Ugub. waxaa sidoo kale xusid mudan taalooyinka reebka ah kuwaasoo waqooyi iyo waqooyi bari laga helo. waxaana ka mid ah kuwa ku yaala Calmadow, Laasaweylood, Duudcade iyo meelo badan oo waqooyi bari ku yaala. أسافر عني من ديرة لديرة عسى يسلى لكن ما حصل لي. أسافر
qarnigii 12aad ee miilaadiga. taariikhaha qaar ayaa xusaya in xilligaasi dalka Soomaaliya ay soo gaareen 3 qolo oo reer eegan ah oo loo kala yaqaanay 1 wariile, 2 daafaraad, 3 harjuubo, waxayna ka soo gudbeen luuq ganaane, waxayna soo gaareen webiga Shabeellada hoose. helada Shabeelle waxa ay kula kulmeen ciidan uu soo diray boqor ka mid ah boqoradii boqortooyadii Ajuuraan. qoladii reer eegan waxaa loo diiday inay soo gudbaan, waxa uuna boqorkii Ajuuraan amar ku bixiyay in la tumo. markaas ayaa aad loo tumay, waxa ayna isku dhiibeen ciidanka boqortooyadii Ajuuraan, waxaana loo bixiyay Tunni, wuxuuna magacaasi ka yimid kuwii la soo tumay. waxayna magangaleen beel ka mid ah beelaha Ajuuraan oo loo yaqaano Toore, oo deegaankoodu uu yahay Baraawe. 5 Tunni ayaa ka kooban 3 eegan iyo 2 reer xeebeedka oo ah Daaqtire iyo Goygaal. laakiin 3 eegan iyo 2 reer xeebeedka waa dad aan isku abtirsan oo dan iyo deegaan wadaaga. sidoo kale kooytadii dalka Soomaaliya timid ayaa waxaa ka mid ahaa qolada loo yaqaano Wanyiko. waxa ayna qarnigii 13aad ee miilaadiga Wanyikadu bilaabeen in ay ka hor yimaadaan boqortooyadii baaxadda weynayd ee Ajuuraan. boqortooyadii Ajuuraan ayaa weerar dhanka koonfur kaga soo qaaday deexadda waqooyi bari ee badweynta Hindiya, waxayna gaartay Mareeg iyo Ceelasha Cadalle. waxa ayna qabsatay miyiga deexadda Banaadir oo u dhaxaysa degmada Warshiiq tan iyo Baraawe. waxa ayna Oromadii iyo Wanyikadii degneyd u riixday dhanka koonfur. waxay taariikhdu xusaysaa in boqortooyadii Ajuuraan oo shacabkeeda ka helaysay taageero badan ay ka soo duushay gobollada dhexe iyo deexadda waqooyi bari, waxayna boqortooyada Ajuuraan soo martay Warshiiq, waxayna hilfaha u laabtay Oromadii iyo Wanyikadii degneyd meelahaasi. waxaa xilli dambe boqortooyada Ajuuraan ay ku duushay Oromadii ku hartay gobollada dhexe, waxa ayna muddo ku loolamayeen boqortooyadii Ajuuraan iyo Oromadii degneyd gobollada dhexe qabsashada Ceelasha Mudug oo horay ay u qodeen boqortooyadii Ajuuraan. boqortooyadii baaxadda weynayd ee Ajuuraan iyo Oromada ayaa isku mari waayay duulaanka. boqortooyadii Ajuuraan ayaa ugu dambeyntii u diyaar garowday weerar kadiisa oo ay ku qaado Oromadii ay ku wada dirirayeen qabsashada Ceelasha Mudug oo ay horay u qodeen boqortooyadii Ajuuraan. ciidamadii boqortooyadii Ajuuraan ayaa waxa ay fardahoodu dibkoodu ku xireen hargo qalalan. Oromadu goortay maqashay hugun soo yeerayo oo ayna aragtay siigo aad u badan oo kacday cirkana ku saloolantay, ayay Oromadii argagaxeen. waxa ayna u maleeyeen in uu jinni soo weeraray, waxayna u baqdin carareen dhanka galbeed. goortay boqortooyada ciidamadeedu qabsadeen Ceelasha Mudug ayaa waxa ay boqortooyadii Ajuuraan u bixisay halkaasi Gaalkacyo, waxa ayna kadib ku fiday gobollada dhexe oo idil. waxaana jiray hees ka mid ah heesihii waagaa fardaha loogu heesay oo ah: haddii aad baraxley buur cad uga fuusho, baadi mooye baadilaawow. boqortooyadii Ajuuraan ayaa lahayd boqorro dhaxaltooye ah
kuwaasoo lahaa awood aan la soo koobi karin. Waqtigaasna waxa ay shacabka ku maamuli jireen diinta islaamka, waxayna shacabka ula dhaqmi jireen marba say u dhaqmaan. boqortooyadii ajuuraan ayaa waxa ay qodeen ceelasha dhaadheer ee ku yaala dhulka adag ee dhibirka ah iyo waraha, kuwaasoo ilaa iyo maanta laga biyacabo. raadirabyada boqortooyadii ajuuraan ayaa ka mid ah qalcadaha ay difaaca u samaysatay, oo ay ka mid yihiin kuwa Dhanaane, Baydhabo iyo kuwa kale oo aad u fara badan oo dalka gudihiisa ku yaala. ceelashii ay ka qodeen gobolada dhexe, xabaalaha iyo taalooyinka, kuwaasoo laga helo meel kasta oo ay Soomaalidu waqtiyadii hore degnayd, gaar ahaan gobolada Baay iyo Harqaan. qarnigii 14aad waxaa gobolada Baay iyo Harqaan soo degay Oromo loo yaqaanay Waradaya iyo Borana. waxa ayna ahaayeen Oromadaasi kuwa cawaan ah, waxaana soo dhexgalay boqortooyadii ajuuraan oo dagaal dheer la gashay Oromadii halkaa degnayd. dagaal dheer kadib waxa ay boqortooyadii ajuuraan Baay iyo Harqaan ka saareen Oromadii degnayd. sidoo kale waxaa degmada Saakow soo degay dad lagu magacaabo Saakuye oo asalkoodu ah Kenyaati, waxa ayna Saakuyaha bilaabeen falalid ku ah boqortooyadii ajuuraan oo ka talinaysay dalka Soomaaliya. kadib boqortooyada ajuuraan ayaa dagaal kadib Saakuyada ka bixisay degmada Saakow. sidoo kale waxaa jiray dagaalo ku salaysan arrimo diimeed oo u dhaxeeya Xabashida iyo boqortooyadii baaxadda weynayd ee ajuuraan, waxa ayna noqdeen dagaaladaasi kuwa guuldareystay. dhammaadkii qarnigii 15aad ayaa waxaa guuldarro ku dhammaaday dagaaladii arrimaha diimeed ku salaysnaa, kuwaasoo muddada dheer galbeedka ku dhex marayay Xabashida iyo boqortooyadii ajuuraan. ساهل ثوابي خياله وانهمر دمعي اللي انا لا جيت بنسى ثوابي خياله وانهمر دمعي اللي واشوفه واكثر من دون دمعي. bilowgii qarnigii 17aad ee miilaadiga, boqortooyadii ajuuraan ayaa weerar ka soo qaaday hareeraha webiga Weeb, waxa ayna dagaal la galeen Oromadii degnayd Baay iyo Harqaan. dagaal muddo dheer socday kadib waxaa dagaalkaasi looga awood roonaaday Oromadii degnayd gobolada Baay iyo Harqaan, waxaana loo riixay webiga Ganaane dhankiisa midig. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in taariikhdan laga soo aruuriyay kaydka qoyska reer boqor ee Aala Sheekh, fasaxaasna uu bixiyay boqorka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya, Boqor Mayo Xuseen Abow Aala Sheekh.